qaar ka mid ah haweenka gobolka Saaxil ayaa maanta olole nadaafadeed ka fuliyay isbitaalka guud ee magaalada Berbera waxaana nadiifiyay qaybaha kala duwan ee isbitaalka Berbera gudoomiyaha Sadan Marwo Khadar Cabdallah oo hal ololahani ka hadashay ayaa sheegtay inay tahay olole ay ku qaadi doonaan toddobaadkiiba maalin qabanay waxa khamiis dhaaf ayaan u sheegnaa meelaha kumanka sida isbitaalada iyo iskuulada iyadoo aan doonayno inaan tayo yeelno isbitaalka nadaafadiisa أنت ينو سنة لفدي سهر سرون ساسام سن تدوعنا وخبروا عن حقوقي أنا والله أنا رحتهم بالقطار. dhinaca kalena maamulaha isbitaalka Berbera Marwo Caashe Aadan ayaa u mahadnaqday haweenkan isla markaana soo dhaweysay cid kasto gacan ka geysanaysa isbitaalka magaalada Berbera haweenka saaka sida tabarucaan u yimi inay nala nadiifiyaan isbitaalka Berbera إنها الجزائر خير حسيو يوحوكوده وكتبرعي نظافتنا وحويا ونرشي بحالين متقشف كوشرا وعود كوشرا marka aad baan ugu faraxsanahay waana mahadsanyihiin والله نظافة كيو هريه نوعي سنة كان كقبصوما عبد الكريم سعيد صالح هون كيبل TV Berbera.